السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ترسيق برنامج كأننا عصب كاسو كسابسن في العلنتي هشيسكي دحمري صوماليا iyo Turkiga oo aad moodidin quwado goboleed oo kala duwan oo heshiiskaasu saameyn toos oo joogta ah oo culus oo mug leh ugu yeeshay. saameynta ugu dambaysa ama falcelinta ugu dambaysa ee la tabi karona ay tahay heshiiskii dhex maray dowladaha Ethiopia iyo Kenya, kuwaasoo run ahaantii aad moodid inuu gilgilay heshiiskan isaga ah ee tilmaamay in dhex maray Soomaaliya iyo Turkiga. Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa Kenyana ay yihiin laba dowladood oo daris ah xuduud wadaaga, balse run ahaantii isku dhacyo siyaasadeed iyo amni joogta oo had iyo jeer uu dhex maro. lana ogsoon yahay in arrinkii keeskii isaga ahaa ee maxkamadda ICJ ay badankeeda ee Soomaaliyeed u xukuntay Soomaaliya, balse aad moodid dowladda Kenya ilaa haddeertadaas iyada inay ka warwareegayso fulinta go'aamadii ka soo baxay maxkamadaas iyada ah. saas awgeedna ay u aragto dowladda Kenya inuu saameyn ku yeelan karo heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga ee nabadgelyo difaac dhex maray oo halkaas iyada ah ee Soomaaliya horseed ka geli karto inay sugto badeeda. sidoo kale quwadaha kale ee goboleed oo iyaguna aad moodid inay falcelin ka sameeyeen heshiiskaas isaga ah waa dowladaha sida Imaaraat iyo Masar, iyadoo ay labadaa dal maalmahan tageen iska kaashadeen arrinkaas isaga ah oo macnihii isugu yimaadeen si muuqaal degdeg ah. arrimaha run ahaantii boorka ka jafeenna ama ay ka muujiyeen cabsidoodana ee ka mid tahay imaatinka quwadda macduda ciidan ee Turkiga badda cas, gaar ahaan xeebaha Soomaaliya, taasoo ay u arkaan in arrinkaas isaga ama imaatinka Turkiga isaga uu lid ku yahay danahooda.